hadduu saakimi waayo salaadan la labaayo maydalseeda madow iyo salligaan cuskadaayo sulub eeba ku joogtaan sarartaa ku dhuftaayo sanbabkaan ka baxshaayo markaasuu sallimaa dhegaystayaal barnaamijkii kan ka horreeyey sidii aan ku soo sheegay qaybaha maansada soomaalida kolkaynu ka hadlayno geeraarku wuxuu qayb ka yahay habab saddexa oo hal abuurkii hore ee soomaaliyeed uu adeegsan jiray kolka uu doono ulajeedooyinka maansada qaar ka mid ah inuu wax ka yidhaahdo kuna cadgoosto guud ahaan culinta geeraarku waa ka fududahay culinta gabayga sababtuna waxay tahay meeriskiisa oo miisaan ahaan midka gabayga ka gaaban sabab kalena waa qaafiyadda oo halka ay qasab tahay meeris kasta oo gabay ah inay ku jiraan laba eray oo isku xaraf ka wada bilowda meelo cayimanna ka gala meeriska geeraarka waxaa looga baahan yahay erey keliya oo xaraf qurac ku qaafiyadaysani inuu ku jiro had iyo jeer hal abuurkii hore ee soomaaliyeed wuxuu u beeri jiray geeraarka mar walba oo uu doono inuu ka maansoodo ulajeedooyin intooda badani ay ku saabsan yihiin colaadaha tolalka dhexdooda ka qarxi jiray iyo isu diyaarintooda hore ulajeedooyinkaas maansayahanadii hore ay geeraarka kaga bogan jireeni way badnaayeen waxaana ka mid ah guubaabinta colka la duulinayo garnaqsiga dagaalada kadib la isku soo hor fadhiisto ammaanta fardaha iyo dabaaldegga lagu maamuuso nin madaxa oo markaa la duubayo ama lagu murweeyo reeraha uu u duuban yahay mar uu dib ugu soo noqday isaga oo intii muddo ah si uun uga maqnaa si haddaba dhallinyarada iyo guud ahaan dhagaystayaashu ay u ogaadaan astaamaha uu habkani leeyahay iyo tilmaanta u gaarka ah aan tusaale u soo qaato laba geeraar oo markii la sheego ay soomaali badani garan doonaan midka hore guuto camaariyaley ah oo la duulinayo ayuu maansayahanku ku gubaabinayaa ka labaadna waxa uu hal abuurkii tiriya ku qeexayaa sida aanu colaadda u jeclayn ee uu cadowgiisa nabadda uga doono iyo markuu ka waayo sida uu isaga celiyo waa tahay cod la dhuray tolkii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa kolka uu qolo kale ku duulinayo iskama uu ambabixi jirine odayaasha iyo guud ahaan waxgaradka reeraha ayaa la dardaarmi jiray waxay u sheegi jireen marka ay reer hebel dul tagaan sida ay u dhaqmayaan iyo halka ay ku joogsanayaan mar walbase dhallinyarada duulaanka u darbani waxay dardaaranka odayaasha ka doorbidi jireen guubaabada maansayahankooda oo meel ay tuban yihiin intuu isa soo taago ka tirin jiray geeraar guubaaba miirana kaasoo ninkii awalba geesiga ahaana dhiiranaan ku sii biirin jiray kii fulayga ahaana wadnaha u kabi jiray tuduucyada geeraarkaasi marka ay dhagahooda ku dhacaan ayay dhallinyaradu iyagoon dhag la qabto lahayn oo dhiig iyo dhagar maagan warmahana looshanaya waxay ku yaaci jireen ciddii loo bukaan qabay rugihii ay ku ogaayeen amaba loogu sheegay dhegaystayaal inkastoo sayd maxamed cabdilla xasan aan sina loogu sheegi karin maansayahan reerood daraawiishtii uu u arrimin jirayna ay ka koobnay tolalka soomaalida dhammidood haddana guyaashii uu halganka ku jiray marna kama ilduufin kolka colalka la duulinayo waxtarka uu geeraarku u leeyahay haddaba maalin maalmaha ka mid ayuu sayidku amray col daraawiisha in lagu saaro ingiriis iyo soomaalidii la jirtay isagana ay xiiraha ahaayeen markuu colkii diyaar noqday ayaa ammaanduulayaashii midkood inta sayidkii u galay u sheegay isaga uun dardaarankiisa iyo ducadiisa inay sugayaan faraskiisii dhoodimeer oo si wacan loogu heenseeyey isaga uu ku jooga ayuu soo baxay oo inta ciidankii soo hor joogsaday isha la wada raacay wixii hub ay wateen iyo fardihii ay ku dagaaltegayeen cabbaar hadduu aamusnaa hoosna u foolaray ayuu si kadis ah madaxa kor ugu qaaday oo inta faraskii ciribta ku dhuftay xagga guutooyinkii u safnaa u dhaqaaqay markaas buu dhagaha ugu shubay geeraarkiisii sabaanka sabaan la baxay geeraarkii uu ku faahfaahiyey sida uu ingiriisku uga gardaran yahay siduu raggiisii u laayey siduu ergo wax ugu waayey ee inuu dagaalaba mooye isaga iyo daraawiish aanay wax kale hadda u bannaanayn wuxuu ciidanka xusuusiyey carruuraha agoontaa ee xarumaha daraawiisheed ka buuxa iyo dumarka asayda wada gambaysan ee raggii qabay ay ciidamadii ingiriisku gardarrada ku makaleen
tuducyadii uu sayidku maalinta ciidankii daraawiishta ku ambabixiyey ayaa waxaa ka mid ahaa: masabaanka sabaan baan nabad saafi ahaayoon sukuudoo idab yeeshayoon sawd xun aanan lahayn. masabaanka sabaan baan so'yaqaanka dugaagiyo haadkii aanu sabaynay oo soominoo qadinaynay. masabaanka sabaan baan sabadii cagaciid iyo suubaankii ballishiil soobir aanan ku maalin. masabaanka sabaan baan sawjad aannin lahayn iyo sabi aabbihii waayey sasabeena ku daaja. masabaanka sabaan baan silcayayda haweenkiiyo salowgii ka baxaayey sarsarkii gelin waaye. masabaanka sabaan baan raggaygii la sadqeeyiyo soofkaygii la xaraashay sadyaa iiga ceshooy subax noolba lahaab. haddaba haddii ay maansadu qaabkan leedahay, gabay ma ahee ha ku sheegin, oo jiifta ma ahee ha ku magacaabin, oo hees ma ahee ha u malayn. oo maxay tahay? waa geeraar. geeraarka labaad waxaa lahaa faarax nuur oo ka mid ahaa hal abuuradii soomaaliyeed ee waaweynaa, gaar ahaan kuwooda awoodda culinta maansada garaadka dheer loogu daray. taas ka sakow, muddo dheer ayuu faarax reerkii uu ka dhashay u ahaa hogaamiye daacad ah oo xilli colaadeed iyo mid nabadeedba uu isagu talada u hayay, iyaguna ay ku kalsoonaayeen. gabayadiisa caanka noqday sida ka muuqatana wuxuu u ahaa hogaamiye aad u dhiifoon oo aan la dagi karin, si weyna isaga xil saaray dadkii uu ilayska u siday ururintooda, badbaadintooda iyo midnimadooda. inay lama huraan noqoto ha joogtee, raggii soo gaaray waxay wariyeen inuu faarax ahaa nin aan colaadda ka talin, isaga oo mar walba maanka ku hayn jiray dhiigga iyo nolosha barbaartooda inuu baajiyo. dhinaca kalena wuxuu ahaa gardarrada quursiga huwan nin ka diriira oo yaraysiga aan inna wax dulqaad ah u lahaan jirin. si kastaba ha ahaatee, geeraaradii uu tirin jiray midkood ayuu faarax nuur wuxuu inagu qeexayaa kor walba inta aanu colaad guddoonsan sida uu xagga nabadda ugu xagliyo iyo marka lagu dirqiyo xaragada uu u dagaal galo. muxuu haddaba faarax sameeyaa si uu nabad uga helo ninka ay maantaa colka yihiin? 6 tallaabo oo midiba ay mid xigto ayuu ninkaa la dagaalankiisa ka horraysiiyaa. marka hore sariir wacan buu meel wacan ku seexiyaa. marka labaadna caano geel buu hareeraha ka dhigaa. marka saddexaad bariiskii cadan laga soo rogay oo sixin lagu gaaciyey ayuu ka durduuraa. marka afraadna gabar qurux badan buu u dhisaa. marka shanaad xoolo uu ku reeroobo ayuu xeryaha uga buuxiyaa oo gabadhii uu ka dabageeyaa. marka lixaadna seydinimo intuu ku laxawsado ayuu garka iyo gundaha ku dhagaa, isaga oo ka baryaya nabad iyo inuu cagaha meel dhigo. waa marka intaasiba ay ninkaas hakin weydo marka uu faarax colaadda guddoonsadaa, markuu inta faraskiisa heensaysto uu caroolo cad dhigo. wuxuu yidhi: rag samaanka samaan baan samaantuun badiyaayo, hadduu saakimi waayo sariiraan u dhigaayoon iska seexa iraa. hadduu saakimi waayana caanihii hasha suub baan 3 goor u lisaayo ku sariiga iraa. hadduu saakimi waayana sumalkii rugta joogiyo sogobkaan u qaraa. hadduu saakimi waayana siirigii cadameed baan subaga ugu badshaa. hadduu saakimi waayana gabar suurad wanaagsan baan surradda ugu dhisaa. hadduu saakimi waayana xoolo gooni u soofiya sadadaan ku laraa. hadduu saakimi waayana seedow mood iyo saraantaan badiyaa. hadduu saakimi waayana salaadaan la labaayo maydalseeda madow iyo salligaan cuskadaayo. sulub eeba ku joogtaan sarartaa ku dhuftaayo sambabkaan ka baxshaayo. markaasuu sallimaa. haddaba tixdaas aad maqasheen kolka ay arrintu joogto, faarax nuur ma gabyin, masafo ama jiiftana ma tirin, mana heesine faarax nuur wuu geeraaray. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu mooggan halkaa inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo socda iyo isagoo kale hadduu eebba yidhaahdo. waxaanse dhegaystayaal idin xusuusinayaa, haddii ay idinla noqoto qaar ka mid ah arrimaha barnaamijyadan ku soo aroora, inaydin wax naga weydiisaan ama aydin ra'yi ka dhiibataan, waxaad nagala soo xidhiiri kartaan cinwaanka emailka VOA-da oo ah somali@voanews.com, adinka oo had iyo jeer dhambaaladiina ku xusi doona magaca barnaamijka oo ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida.